Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada YouTube channel Bashiir oo ah madal waxbarasho ama madal waxbarasho oo aad ka faa'iidaysataan casharro free ah. Waxaan ku jirnay koorsadii aan ku baranaynay barnaamijka MS Word oo ah barnaamij wax lagu qoro. Waxaan maraynay casharkii saddexaad. Waxaan kusoo baranay sida textiga loo koobiyeeyo, sida paste loo dhaho meelka loo dhigo, iyo sida cut loo yiraahdo oo meelka looga jaro. Casharkan waxaan ku qaadanaynaa cashar xiiso badan. Waxaan ku qaadanaynaa sida textiga fartiisa loo format gareeyo, sida farta loo weyneeyo, sida farta kalarka looga bedelo, iyo sida farta waxyaabo badan loogu sameeyo. Marka koowaad waxaan hore usoo sheegnay text kasta oo aad rabto inaad wax ka bedesho waa inaad marka koowaad aad ku samayso wax la yiraahdo highlight oo aad highlight saarato. Unless textigaada aadan highlight saarin ogow inaad waxba ka bedeli karin. Okay, tusaale marka hadda ciwaanka iyo casharka oo kale waxaan rabaa inaan kala weyneeyo. Ciwaanka kaligiis highlight aan saarayaa. Waxaan soo furanayaa xaggan. Waxaan ka bedeli doonaa dhowr nooc. Font formatting aan ku samayn doonaa, farta qaabeyn doonaa. Waxaan ka bedeli doonaa nooca farta. Meeshaan nooca farta ay ugu kaydsan. Fartaan aan iska dooranayaa la yiraahdo Times New Roman. Meeshaan waxaa igu jira size-ka farta. Size-ka farta waxaan iska dooranayaa 16. Intaas markaan doorto meeshaan waxaa ku jira kalarka farta. Markaad dul tagto ayaa magaceedu ku soo qormi doonaa. Buluug aan iska siinayaa marka. Meeshaan waxaa ku jira wax la yiraahdo text highlighter ama highlight text in la saaro. Highlight kale hadda iska saar. Highlight-kiisa waxaa ka dhigtaa jaallo kale ka dhig. Okay, waa ka saar. Xaggan waxaa ku jira wax la yiraahdo text art ama yani qoraal xogaa waaweyn oo farta qurux ka dhigaya. Kaas buluug oo kale iska dooro. Hadda rabtina waa iska dhaafi kartaa asaga. Inta markaa ku samaysid waxaad samayn kartaa oo kale hal mar highlight ku laabo inaad farta labadan eedan iyo eedan ka waaweynaysid. Tan haddaad taabatid farta way waaweynaa doontaa, tan haddaad taabatidna way yaryaraan doontaa. Marka intaba iska isticmaal hal lambar oo go'an iska dooro. Tusaale 18 saddeetan iska kaydaa. Meeshaan oo kale waxaa laga sameeyaa farta in waaweyn laga dhigo, yaryar laga dhigo. Marka lower case waxaa weeye in farta la wada yareeyo. Sentence case waa xarafka ugu waaweyn in weyn laga dhigo. Inta kalena yaryar laga dhigo. Upper case waa ayada dhan far waaweyn laga dhigo. Capitalized each word waa eray kasta in la weyneeyo. Intaas ugu muhiimsan. Sentence case marka ayaa la doortaa inta badan, laakiin hadda waxaan rabaa inaan doorto upper case ayada dhan aan weyneeyo. Upper case markaan doortay ayada dhan far waaweyn noqdeen ciwaankii. Okay, intaas haddaan uga imaado ciwaanka waxaan ku sameynayaa highlight baa marka haddana waxaan saarayaa textigan. Sidoo kale meeshii baan tagayaa, farta nooceedaan ka bedelayaa. Waxaan iska dooranayaa Arial, farta la iska dooranayaa. Size-keeda waxaan iska dooranayaa 14. Farta waxaan iska dooranayaa sentence case. Color-keeda waxaan iska dooranayaa green, cagaar baan ka dhigayaa. Highlight dhan uma yeelayo. qaybtaan marka imaam meeshaan waxaa loogu talagalay saddex arrin ku jirta. Text style ayaa la yiraahdaa ayadana. Waxaa ku jirta wax la yiraahdo bold oo farta qad ka dhigaysa, italic oo farta mid jiifta ka dhigaysa, iyo underline oo hoosta ka xariiqaysa. Okay, control B oo kale tan haddaan taabto keyboard-ka kale way iga qaadmeen hadday saarneen way saarmeen. Italic oo kale waa control I asagana. Hadduu saarnaan wuu ka qaadmaya, hadduu saarnaan wuu saarmaya. Underline waa calaamadaha hoosta laga wada xariiqo hadalka dhan. Asagana control U ayaa lagu doortaa. Marka saas ayaa farta loo format gareeyaa. Runtii hadda farta way weynaatay, wayna qurux badan tahay. Markasta aad rabtid inaad farta wax ka bedeshid, inta aad rabtid inaad wax ka bedeshaa highlight saari doontaa. Kadibna waxaa ku samayn doontaa formatting. Kadib documentigaada saas ayuu noqon doonaa mid qurux badan adigoo ka bedelaya dhammaan noocyada farta, sida farta cabirkeeda, inay far yar tahay, inay far waaweyn tahay, farta kalarkeeda iyo wixii lamid ah. Okay, intaas casharkeena intaas ayuu noogu ekaan doonaa. Intaan ku kulmi doona casharkan mid lamid ah waxaan kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.